وهذه السلامية قدومي أدنى ما تسنتهاي waxaan rabaa gudoomiye arar badan waqtigiiba cariir iska noqday shantii daqiiqo waa lagu filaan weysay inaan hore u galo horta marka koowaad waxaan u mahad celinayaa guddigii maaragtay sharafta lahaa ee waqtiga badan geliyay iyo juhdiga aad u tirada badan geliyay sharcigan runtii soona waafajiyay dastuurka aadan ugu mahad celinayaa dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan rabaa oo kaleeto inaan ku ammaano runtii qaabka ay u soo doorteen hanaanka doorashada iyo siday maskaxdooda u shiileen oo ay u keeneen maxaan ku yiraahdaa nidaamka aqlabiyadda marka koowaad waxaan rabaa inaan horta sharaxaad yar ka bixiyo difference-ga u dhaxeeya liiska xiran iyo nidaamka aqlabiyadda labada iyo ciladaheeda waxaad moodaa xildhibaano badan oo asxaabteena inaysan ku baraarugsanayn ciladaha iyo caqabadaha ay keeni karaan maxaan ku yiraahdaa hanaanka la doortay ama hanaanka labada hanaan oo meeshan ku kala qoran waxaan rabaa ciladaha liistida xiran koow waxa weeye horta Soomaali haddaan nahay dastuurkan wuxuu qorayaa waxaan ku heshiinay heshiis awood qaybsi number 1 haddii awood qaybsiga meesha ka baxo waxaan u noqonaynaa khilaaf xoog leh liistada xiran ee hore loo soo gudbiyay sharcigan hadda laga soo bedelana waxa ugu daran oo ugu muhiimsan qodobada ugu muhiimsan oo ciladaheeda ay tahay waa awood qaybsigii oo meesha ka baxaya marka taas horta in lagu baraarugo waxa laga yaabaa barnaamijka xildhibaanada aan ku sheekaysanayno asxaabta ahi inay qaarkood ay aaminsan yihiin liistada xiran weli saxan tahay marka waxaan rabaa inaan dhammaantiin idinla wadaago aragtidayda ku saabsan kow haddii aan dabcan ay awood qaybsigiiba meesha ka baxo macnaheedu waxa weeye hore looma socon karo sida ay guddiguna dabcan ay ku soo tilmaameen riboorkoodana ay ku soo qoreen qodobka labaadna waxa weeye ugu muhiimsan ayadana la xisaabtan la'aan xildhibaanku deegaan doorasho ka yimid in lala xisaabtamo dadka soo doortaa ay la xisaabtamaanna waxaan u malaynayaa waa arrin aad muhiim u ah ayadana cilada labaad oo ku jirta oo haddaan la isla xisaabtamin dalkii iyo deegaankii midna horumar ma gaarayo marka waxaan isleeyahay ayadana qodobkaasi isaguna aad u muhiim u yahay waa cilada labaad oo aan u soo jeedinayo maaragtay liistada xiran midda kaleeto ugu ayadana laftigeeda dhibaatada keenaysa waxa weeye midda xisbiyada dhexdooda ah sidaan la soconno liistiga xiran ee xisbiga waxaa laga rabaa 275 xildhibaan inuu soo gudbiyo 275 xildhibaan na waxaa la rabaa in la kala doorto oo qof walbaaba uu number ka galo numberkiisa lacay marka anigu xisbiga aan ka tirsanahay marna ma aqbalaayo inaan numberka boqolaad noqdo because waxaan dareemi karaa inaan maybe xisbigana 100 coduusan 100 xildhibaan soo heli karin sidaas darteed waxaa meesha ka baxaysa isqabqabsi axsaabta dhexdeeda meeshaasna waxaa ka imaanaysa in axsaabtii burburto oo maxaan ku yiraahdaa la soo dhiirigelinayay sharcigii maaragtay axsaabta iyo ku dhaqankiisii iyo dalkan oo la rabo hore inuu sii aado dal xisbiye aado inuu noqdo meeshaas inuu asaguna meeshaas ay ku burburto ka baxdo marka waxaan u baahanahay sideeda nidaam dhiirigelinaya axsaabta nidaam axsaabta khilaaf dhexdhigaya ama dib u noqonaya marna uma baahnay marka sidaas darteed waxaan isleeyahay ciladahaas oo dhan marka la isku daro waa muhiim in aan dib loogu noqonin maxaan ku yiraahdaa saaxiibadeeda xildhibaanada qofkii aragtida intaas ka duwan wada oo nagu qancin karana waa soo dhaweynaynaa laakiin aniga waxaan ku soo koobay ciladiisa saddexdaas ciladood oo ay tahay in runtii laga gudbo nidaamka aqlabiyadda kow awood qaybsiga waa u saxayaa isla xisaabtankii waa la sheegay oo deegaanka qofka laga soo doortay qofku magaciisu la tagayaa iyo maaragtay iyo magaca xisbigiisa asagoo wata asaga laga rabaa deegaankiisa inuu ku soo qanciyo cidda dooranaysa iyo maaragtay maxaan ku yiraahdaa wax uu qabanayo iyo xisbigan wax uu qabanayo deegaanka marka waxa lagu qasban yahay xisbi kasta iyo qof kasta oo xildhibaan soo